waxa kale oo leeyahay sida la sheegay ka xukuumad ahaan anagu mar walba waxa la yidhina itaalkiisa ma dhaafo qaran cusub bay nahay wali caalamka aqoonsi ka helin laakiin hadda ilaahay mahdi qaramo badan oo caalamka jimciyadda quruma caalamkooda ka babanayo maanta haddana ka nabadgelyo badan oo ka maartay ka degan inta inoo dhimana insha Allah ilaahay way noo buuxinayo waxay noo dhimanay waa inaan caalamka xiriirkiisa helno rajo wanaagsan waynu qabnaa maalgelinii koowaadna waa kuwa bilaameed maqliseen waxaan ku hawlanahay mar walba runtii halan canaanto oo mar walba ninka macaaridka dibadda joogay dibadda ha ka hadlo oo ha yiraahdo waxba lama qabanayo waa la fadhiyo ha la yiraahdo waa curfiga dhaqanka maartay siyaasadda in la saarido in la istoosiyo in kastoo baanta eedaaf fara badan oo macaaradu baanta mid wax dhista waxaan kolka soo mashquul lagu yahay in sidii dalkani shuruuc loogu sameyn lahaa sidii loo sameyn lahaa weelkii ama bi'adii ay caalamku ku soo hirin lahaayeen si dalkani u maalgeliyaan haddaan loo sameyn bi'adii lagu soo hirin lahaa oo ah koow sharciyo nabadda oo iyadu maanta dalka Soomaaliya ka hirgashay shuruucdii dalku ay aamin lahaayeen ummad la dhiso wadaniyad leh oo soo dhaweysay cid kastoo dalka maalgelinaysa waxaan aad ugu faraxsanahay intii halkan ka sheegay Dr. Buuxane oo yiri wax la barayay wadaniyadda iyo nidaamka dawladnimada intay naga dhiman Soomaaliya waa dawladnimada qiimaheedina garano weeyaan haddaynan dawladnimada qiimaheeda garan qaran dadku meel ma gaaro ummaddu waxa haday sharciyo kala dambeeyo dawladnimo weeyo xayawaanka kama duwana gidaarada isku fuulaya xayawaanka ay soconay kama duwana waxa ummaddu kala joogtaa oo kala horumaraysaa waxa weey waa sharciga iyo dawladnimada la ixtiraamo waxaad ogaataan oo aad moodo gaar ahaan gobolka Awdal in dawladnimada aad iyo aad ay jecelayn ama ku tabaraysan dawladnimada war dawladnimadu waa dantiina waa gogoshaada hadaa dawladnimada iyo wadaniyadda hagaajisato wax walba wax ku iman fadhiyo ku imanaya waxaan leeyahay reer Booramo waxa weeyaan dalka nimcada ugu badan ama waxaad moodaa iminka rikoorka ugu badan ee roobkii sanadka daay Booramo dhulka ka roobka badan waxa wasiirkii beeruhu joogay saadash ku shaqulaha hadduu indhi akhriyo maanta nimcada ama shalay ka daaday guga qaybta reemka meesha ugu roobka badan waa Booramo wana sibad gaar u leeyihiin nimcadii waa haysaan nabadina waa haysaan waxa moodaa in qayladu iyo buuqu inuu fara badan yahay waxaan macna lahayn oo farabaad ka hadashaan gaar ahaan saylici ku farabadan war saylici balama wado magaaladiisa dadkiisa uu jecel yahay in waxa la dhiso baan jecelnahay xumaan ma rabno laakiin waxa idinka farabadan oo maskaxda ka qabsaday cigaal baa la waxaysta ruucadaagaysa wuxuu yiri ayaa bari wuxuu yiri meel baa lagu sheego qolaacinkaas gabiil wax ka sameeyay leeyay markaas uu 10 xumeel boo joogan war 10kii xumaa baa idinka fara yaa maskaxdiina ka farabatay 10kii xumaa iyad moodayna maskaxdiina ka bateen waxa weeyaan magaaladeedu inay dhisanto oo qurux badnaato oo la tartamid magaalooyinka rabnaa ninka shaqadiisa ka xumaato inay ugu raftisay inay ku rafto maaha waxa weeyaan nimanka Talyaaniga yaa adduunyada ugu farsamo badan Talyaaniga wuxuu ku maahmaaha nijaarka xuduubiisu canaanta marka shaqadu ka xamaatay dibaa maanta ugu xumaa walaal ku tuuraa qofkii shaqadu ka xumaata inay rumeen laga bedelay nin golihiisa bedelayo anagu ka dawladahan hadduu dawladdu qofka mas'uulka degmo ka mas'uula hadduu shaqadiisa qabsan waayo xaq baan u leeyahay bedelno maanta iyo bariye saad waa bedelina qabyaaladii aan laga dhigin qabyaalad ma rabna inuu qofkaasi wax wanaagsiyo oo wax dhiso oo kaliya rabnaano Abdiraxmaan Daaray dhismalihi lacag si malihi waxaan ku dagaalamayna waxa leeyahay in magaalada la dhisaan rabnaa barasaabka jooyeen wax dhisaan rabnaa oo dadka u dhaxeeyo taliya qaybtu inuu dadka hagaajiyo rabnaa inta amnigu meeyarku inuu dadka hagaajiyo inuu idin dhaxeeyo wax idin dhiso amniga ka shaqeeyo nabadgelyada ka shaqeeyo cadaaladda ka shaqeeyo intaas aan saaranaga wax kale oo jeedo ka rabnaa ma jirto yaa leeyahay dhaliyaray aqooyaan waa magaalada aqoonta war beeyman sheen aqoontiina waxa uma tareysay qabyaalada kula dagaalama aqoontiina waxaan qaranka ma jecelahay dhisno gobolkaygu inuu dhismo kala tartamaan jecelahay magaalada caasimadda Booramo magaalada ka qurux badan jecelahay magaalada Booramo way quruntay maanta dhisma ka socdo horumar baa ka socdo laakiin maxaa ka dana haday wadooyinkii wada xidhan yihiin haday maartay gidaafada dhex taalo
maanta dhulkii quruxda badnaan jiray baarkii kala han jiray wadadii oo soo saarteen leema soo saarteen masayri aad ka xumaynaysan warada magaalada hagaajista oo maanta meelka cusub waan dardaaranay waan wada hadalnay ku garab gale magaalada waa in la baneeyo oo wadooyinka la baneeyo oo magaalo qurux badan oo caasimad la soo saaro haddii kale se qulunka dugsadii war waxaad maraysaan reer Booramo waxaad maraysaan ilaahayna ka baqa waxaad maraysaan gidaafadiini meeshii loo qodi lahaa oo buurihii ilaahay naga dhaxeeyay taa la qodin oo ku taageeraysaa raacaysan oo odayalka buurinta soo joogsado oo neeya buurta la qodi maayo oo intiina suuqa joogtaa ku raacsantiin xaq gidaafada waxa dhiganaysaan maaqada dhiganaysaan hadda dham sayidkii iyo meeshii laga qoday gidaafada buurtii aad lahaydeen hadduu odayniga hor joogsaday qoodhii xiriir maaqada dhiganaysaan gidaafada war isku waxa isku falayaan wax walba qabyaalada gelinay dalka dhisa dhalinyaro maskaxda la nigu xumeynaya wadaniyadiina iyo dadnimadiina iyo dawladnimadiina qiimo galiya waxa kale in balan qaadina hadii awal waxa qalqaloocnayeen ama lahaydeen shaqa cid gaar loo siiyaa madaxweynaha uu soo joogsaday 10 jeer buu ka hadlay opportunity-ga soo socda dalka maanta 10 shirkadood baa imanaya mid walba waqti taabiloodo 3 sano bilood soo socda waxaan rajaynayaa 3 shirkadood oo waaweyn in dalka shaqo bilaabaan waxaan ku dardaarnay hadday qandaraas bixinayaan inay tartan dalka dhex dhigaan oo ummadda ka dhaxayso hadday shaqo qaadanayaan inay tartasiyaan hadday dawladdu shaqo bixinayso waan tartasiinaynaa aqoonta ku tartama inaad qarankana ciidan kama laha u diyaar garooba inaad qaranka nin walba cilmiga wax kula soo baxdo anaga taas anaga go'an inaan qof dambe wasiir dambe inuu 5 qof oo xaafadooda inuu wasaaradiisa qorin waa naga go'an madaxweyne ballan iyo go'an buusiye marka aynu diyaar garowno doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda dastuurkeena dhigay waa loo gol yahay in isku dhaliilno inaan tartano aan ogolahay tartanku ma ku dhamaanayse halka inoo dhiga madaxtooyada goorma dhacday imika sana ma dhantahay wali inta joognaa 4 sano dhan baa hadhan ninka maanta waxa ku xiiqayay waxa ma qabsanayo wararta aan dalka dhisano maalinta tarku yimaadana ka madaxweyne noqonaya ka ku xigay u tartamaya welcome de siyaasadda cid walba furantay iyo ka xidhan tahay laakiin dalkan waxa wax ka horeeya wax walba siyaasadda iyo tartanku maalintiis jooga maalinta golaha dagaal tartamayo waa tartamaynaa maalinta baarlamaanka tartamayo waa tartamaynaa maalinta madaxweyne loo tartamayo waa tartamaynaa laakiin se markayna joogin dalka iyo dadka dhisano nin walba magaaladaada iyo qarankaaga soo dhisi lahayd u diyaar garooba marka aad iyo aad maasantiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad billahi waan idin ducaynayaa inaan ka runtii halan ka hadlay ee maanta ugu sareeyana oo isku darsaday laba isku darsaday de iskuulada soo marnay xariinan xariifa oo aftahana lama arag bay isku darsada xariif iyo aftahan ninka xariifka inta badan in nugul buu ahaan jiray oo dadka soo horjoogsan karin laakiin sanina xariifnimo isku darsaday aftahanimo barakallahu fi malaysa ila barakeeyo idinka dhamaantii Allah in barakeeyo aad iyo aad baan martay idinku mahadnaqnaa dhamaantii jaamacadda ardayda iyo waalidkaba waxa leeyahay guul baan idin rajaynayaa nin walba isagu isku xisaabtamo oo qarankani waad ogtihiin oo wax la isku dhaliilaa ma yaale oo wax la idiga hakranaya ma yaalo laakiin sax meesha yaala inuu nin walba maskaxiisa tuujiyo waxa jira qolada Soomaha faculty beeraha jira Soomaha faculty beerihi baa jira inanka beer leeyahay ee jaaris dhul helay ee haddana soo raadsanaya milyan Soomaaliland oo maalin ku soo saari karo ma nasiib darro hayde cilmigiisa waa inuu beertii aabihi la tagay qofku oo soo saaro maalin buu soo saaray inta mishaarka dawladda lagu qaatay halka milyana hadduu aqoontiisa beerta geliyo wuxuu soo saaray hal maalin buu milyan soo saaraya marka waxaad ogaataan businesska iyo maartay hantida gaarkii way ka qiimo badan tahay ta dawladda loo shaqeynayo dawladdu maanta maalinta nidaam caalami yeesho ee dhaqaale yeesho waa laga yaabaa qofku wax ku filan la gaarsiiyo laakiin maanta askariga alxamdulillah niyad bay iyo iimaan buu ku joogaa macallinkeenu niyad iyo iimaan buu ku joogaa nin maanta wax ku filan la siyaama jiro wax laga hareeyo xagga damar dhigana ma jiro waxay isku nabaynaa suufi xanjir isku nabaynaa ilaa maalintii aynu xornimo aan la soo noqonay oo isku tashanay ilaahay bay noo guuleeyay inaan dal nabada inagoo dhaqaaleenu inta yahay haddana dal nabada aan hirgelino caalamka nagu ma jeeranayo aad iyo aad baa mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.